bahal ay Shiinuhu cunaan oo la sheegay inuu yahay isha asalka ah ee cudurka coronavirus. Ethiopia oo laga helay 29 qof oo laga shakiyay inay cudurka coronavirus qabaan. In ka badan 20 qof oo ku dhintay toogasho ka dhacday suuq ganacsi oo ku yaala Thailand. Bukaankii ugu horreeyay aan u dhalan Shiinaha oo caabuqa coronavirus u geeriyooday iyo askar Ethiopian ah oo iyagoo baxsad ah u gacan galay argagixisada kadibna la dilay. haatana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan. haddii aad nagu cusub tahay daawada subscribe saar waddanka TV oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idiin soo gelino. haddii saaxiibadeenna nagu taxanna ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeenna cusub uga mid noqdaan laegtana ha naga hilmaamina. Aan ku bilaabo marka hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxay sharciga batroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyaddu ay soo dhamaystireen hanaankii sharciga ee kaga aadanaa dhaqangalkiisa. War rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada qaranka ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda uu shacabka iyo dawladnimada Soomaalida ay u leedahay sharcigan oo hagaya xuquuqda muwaadiniinteena ay u leeyihiin in looga faa'iideeyo kheyraadka ceegaga dhulkeena isaga oo xayndaab u noqonaya kana ilaalinaya takrifalka damaca shisheeye iyo musuqmaasuqa. sidoo kale meelmarinta sharciga batroolka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay maalgashadayaasha caalamiga u muujinaysaa sida ay uga go'an tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ka mir dhalinta higsigooda ku aadan xasiloonida dalka iyo in ay wadajir ugu tallaabaan guga barwaaqa sooranka iyo horumarka. madaxweyne Farmaajo ayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya golaha xukuumadda xildhibaanada iyo dhammaanba khubradii Soomaaliyeed ee qaybta ka qaatay uga mahad celiyay dadaalka ay geliyeen sharcigan dhaxalgalka ah. sharciga batroolka ee uu meel mariyay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku salaysan sharciyada batroolka iyo macdanta dalka, dastuurka iyo heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaaga kheyraadka dabiiciga ee lagu seexay Baydhabo. dhanka kale tan faafitaanka cudurka coronavirus ayaa la sheegayaa inuu Shiinaha oo qura ku laayay 900 oo qof walow aanu dalkaasi taasi qaranin. waxaana la sheegayaa inuu ka soo bilowday bahalka loo yaqaan pangolin sida ay qabaan cilmi baarayaasha. bahalkan oo laga soo sooco caanleyda armadillo ee laga hela Amerika ayaa aad looga jecel yahay Asia oo quud iyo dababa ka dhigata, taasoo keentay in aad loo raadiyo tiyo ugaarsigiisa mamnuucaya xeerka caalamiga ah maadaama uu ka mid yahay gacalooyinka halista ugu jira dabargo'a. walow horey loo calaamadeeyay fidmeerta misna jaamacadda South China Agricultural University ayaa sheegtay in qaabka uu taxan yahay hidisidaha cudurrada uu keeno fayraskan go'doonsan ee laga helo bangolinku uu 99 la mid yahay taxaha laga helay dadka cudurkani ku dhacay. taas ayaa cilmi baarayaasha ku dhalisay inay bahalkan u arkaan inuu yahay dulinsidaha koowaad ee cudurkan coronavirus oo haatan ku faafay ilaa 25 dal tan iyo markii uu ka soo ifbaxay magaalada Wuhan ee Shiinaha bishii December. war ka soo baxay jaamacadda oo lagu daabacay webkeeda ayaa u dhignaa kashifkan cusub wuxuu aad muhiim ugu noqon doonaa ka hortagga iyo xakamaynta asalka fayraska. dadka Shiinaha ayaa cuna hilibkan bahalka oo u qaab eeg caano quubta iyagoo aaminsan in qolfaha ku dahaarani ay u roon yihiin haweenka ilmaha nuujiya. yeelkeeda khubrada ayaa ka digaya in aanu xogtan weli dhammaystirnayn oo in aad loo sii qodo ay u baahan tahay ka hor inta aan la go'aansan in bahalkaasi aan la cunin. Shiinaha ayaa dareemay inuu leeyahay xoog ciidan iyo tiro ahaan kuwa ugu badan ciidamada adduunka kadibna waxa uu dareemay in ayna jirin cid hor istaagi karta. waxa ay bilaabeen in awoodooda ay ku tijaabiyaan isla dadkoodii gaar ahaan muslimiinta Shiinaha oo isla dalkoodii lagu ciqaabay lagana mamnuucay in ay cibaadaystaan islaamnimaduna ay noqotay dambi weyn. kitaabadii qur'aankana laga gubay, muslimiintii ayaa lagu xareeyay xabsiyo iyo deegaano ayna ka gudbi kareen, ciqaab culus ayaana la marsiiyay. haddii qof amaba qoom ay ismoodaan inay awood leeyihiin ay kibraan, waxaa loo soo diraa ciidan alle oo loo yaqaan junuudullah, waliba meel aynan ka malaysanaynin iyo kuwa ay ku tuhunsan yihiin tabaryaro laakiin iyaga ka awood badan. Shiinaha waxaa loo soo diray jeermis aad u yar oo ilmo aragta ah, waxaana loogu soo dhiibay kibil ay iyagu gacantooda ku soo qabsadeen kadibna ay cuneen. kadibna waxa xigay in dadkoodii ay xiriyo ku xiraan oo ay yiraahdaan halkan kama bixi kartaan, taa oo la mid ah sidii ay u xareen jireen muslimiinta Shiinaha. taa waxa u sii dheeraatay in adduunkii uu iska go'doomiyay iyaga, taas oo saameysay kobicii dhaqaale ee dalku ku faani jiray. aw ciidamadii Shiinaha ee xoogga badnaa ma jeermis ilmo aragtaha iyo iska celin waayeen, mayayna cashar ka qaadan boqor Abraha weerarkii ee kabcada
isaga oo wata ciidan xoog leh iyo maroodiyaal in loo soo diray junuudullah oo ah shimbiro yaryar oo la yidhaahdo abaabiil oo afka ku wata dhagxa yaryar miyaysan fiirin boqorkii namruud ee kibirka badnaa in loo soo diray ciidan alleh kuwa u muuqda in ay laciif yihiin oo kaneeca sanka ka gashay qaar kale oo kibrayna in loo soo diray quraansho gudguduudan muslimiinta shiinaha iyo kuwa eshiya sida aan hore inkugu soo sheegay reer rohingya waxaa haysta ciqaab loogu geysanayo waxa aad tihiin muslimiinta shiinuhu waa dad muuqaal ahaan iyo diin ahaanba ka duwan shiinaha kale waxaan ka xasuustaa in cunsuriyad lagu hayay aniga oo jooga magaalada ganacsiga ku caankaa ee kuwanzanga ee dalka shiinaha ayaa nin shiineys ihi igu yidhi ma jecli in aan guryaha ka kireeyo muslimiinta shiinaha iyo afrikaanka sababtoo ah afrikaanka adiga oo daalan oo shaqo ka yimid ayuu miyisu kugu shidaya iskana ciyaaraya muslimiinta shiinuhuna waa dad naga dheerdheer oo naga xoog badan haddii aan dulmino amaba aan la muranno wayna dharbaaxayaan muslimiinta muuqaalkooda waxaan ka xasuustaa isla magaalada kuwazanga maqaayad ay yamni ku leedahay ayaa aniga iyo saaxiibkii oo ahaa ganacsada Soomaaliya ayaan shaax u soo doonay saaxiibkii ayaa si kaftan ah ninkii shaaxa noo keenayay oo ahaa shiineys muslim ah u yiri waxaan nahay muslimiin waxaan u baahannahay inaan guursano laba gabdhood oo muslimiin ah oo shiineys ah shuruuduhuna waa in ay dusha ka yaqaanaan qur'aanka in luqadda ingiriiskana ay yaqaanaan in ay bikra yihiin iyo in ay yaqaanaan xirfado shaqo oo heer jaamacadeed ah waxaan u haystay bacdana uu dalka iiga soo horreeyey ganacsadahan Soomaaliga in ay kaftamayaan maalintii xigtay ayaan tagnay maqaayadii Yamaniga waxaa jooga laba gabdhood oo asturan dheerdheer waji qurxan kadibna shiineyskii muslimkaha ayaa nagu yidhi labadan gabdhood waxaan uga yeeray magaalo 400 kiiloomitir noo jirta waxa ay leeyihiin shuruudihii oo dhan annagu waan yaabnay ganacsadihiina waxa uu yidhi waan kaftamayey saaxiibkii waxaan ku yidhi adiga dhibkan mas-uulka ah anigu maba aanan hadlin maalintii hore ee fuli ballantaadii waxa uu yidhi ma fulin karo waxaan ka qaaday lacag ganaax uu aad uga naxay gabdhihiina ay ku raali noqdeen una noqdeen deegaankoodii ku cibro qaado shiinaha abraha iyo namruud jeermiska shimbiraha kaneecada iyo weliba quraansho guduudka adiguna xasuuso awoodda alle mar walba dhanka kaleetana xarunta dabagalka cudurka coronavirus ee dalka Ethiopia ayaa sheegtay tan iyo markii uu cudurkaasi dilaacay xarunta in la soo gaarsiiyay 29 qof oo cudurkaasi looga shakiyay wasaaradda caafimaadka oo qabatay shir jiraa'id oo ay cudurkaasi kaga hadlaysay waxa ay sheegtay in 29 qof oo cudurkaasi looga shakiyay xarunta ay soo gaareen isla markaana dabagal iyo hubin dheeraad ah lagu sameeyay waxa ayna wasaaraddu sheegtay baaritaan qoto dheer oo lagu sameeyay 29 qof ee xarunta soo gaaray 14 kamid ah waxa laga helay calaamado cudurkaasi oo inta si rasmi ah looga ogaanayay inay cudurkaasi qabaan iyo in kalena waxa lagu karantiilay goob u gaar ah oo lagu la socdo xaaladooda dadkaasi looga shakiyay cudurka muunada laga qaaday oo koonfur Afrika baaritaanka looga dirayna waxa lagu ogaaday 8 kamid ah inay cudurkaasi ka bad qabaan 3 qof ee soo hartayna natiijadooda baaritaankooda koonfur Afrika laga sugayo waxa ayna wasaaraddu intaasi ku dartay 3 qof oo kale oo cudurkaasi looga shakiyay in baaritaankooda loo dirayo koonfur Afrika magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo cudurkaasi ka soo bilowday dhammaan dadka ka yimaada waxa la go'aamiyay in goob u gaar ah lagu karantiilo inta caafimaadkooda laga hubsanayo guud ahaanba dadka ka yimaada dalka Shiinaha iyagoo aan dadka kale ee safarkaasi ah isdhexgelin waxa lagu sameeyaa baaritaano ay sameynayaan xirfadlayaal u tababaran iyadoo ogeegada diyaaradaha caalamiga ee Boole ee magaalada Addis Ababa lagu diyaariyay xirfadlayaal qalabkooda u dhameystiran yahay laanta socdaalkana ay u diyaarisay goob u gaar ah oo lagu adeego dadka dalkaasi Shiinaha ka yimaada wasaaraddu waxay hore u sheegtay 8 qof oo looga shakiysnaa inay cudurka coronavirus qabaan baaritaanka lagu sameeyay in lagu ogaaday inay cudurkaani qabin sidaana looga saaray xaruntii lagu karantiilay oo ay muddo ku jireen dawladda Soomaaliya ayaana wali qaadin wax tilaabooyin ah oo ay ku xadidayso safarada ku xiran Shiinaha oo ah isha cudurkani Ethiopian Airlines ayaa wali sii wada safarada ay ku tagayso Shiinaha iyadoo sidoo kalena timaada Soomaaliya dhanka kaleetana askari u dhashay wadanka Thailand ayaa 20 qof ku dilay kadib toogasho toos ah uu ka geystay magaalada Nakhon ee dhacda dhanka waqooyi bari ee dalkaasi sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca la tuhumaha weerarkani geystay oo magaciisa lagu sheegay Chakabara ayaa ciidanka amniga sheegeen
in weli gudaha uu ugu jiro suuq laga dukaamaysto. dhanka kaleetana laamaha amniga ayaa ku guulaystay inay soo samata bixiyaan dhowr qof oo isugu jiray ganacsatada suuqa iyo dad kale oo u adeeg doontay halka uu weerarku ka dhacay. ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa arrintani, waxaana weli socda howlgallada ay laamaha amniga Thailand ay ku doonayaan in ay ku soo badbaadiyaan dad kale oo askarigaasi falkan geystay oo gudaha suuqa ku dhaxaysto. askarigan ayaa inta uusan weerarka qaadin waxa uu soo dhigay baraha bulshada sawir muujinaya isaga oo gacanta ku haysta mid ka mid ah qoryaha darandooriga u dhaca, waxaana uu sheegay in wakhti walba ay dad badan dhiman karaan. afhayeenka wasaaradda difaaca Thailand Congreba ayaa sheegay in ay askariga ka tirsan ciidanka militariga oo u muuqday ruux maskax ahaan jiran. aan isla wararkii Shiinaha ku soo laabanee muwaadin u dhashay Mareykanka oo da'diisu ahayd 60 jir ayaa caabuqa corona ugu dhintay dalka Shiinaha sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan dowladda Mareykanka. cudurkan oo dad ku dhow 1000 ruux oo Shiineys ah ay ugu dhinteen magaalada Wuhan ayaa noqonaya markii ugu horeysay uu dhinto muwaadin aan u dhalan dalkaasi. markii ugu horeysay cudurkan uu soo shaabaxo ayaa waxay ahayd dabayaaqadii bishii December, iyadoo hadda laga digayo in ay dunida inteeda kale uu ku faafo. dhanka kaleetana dad qaba cudurkan ayaa lagu arkayay wadamada UK iyo Faransiiska, taas oo keentay walaac hor leh oo dalalka reer galbeedka ay ka qabaan caabuqan daran. afhayeenka safaaradda Mareykanka ee magaalada Beijing ayaa xaqiijiyay in maalinta Khamiista oo muwaadinka Mareykanka ah ku dhintay magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha. ugu dambeynna duleedka degmada Wajir ee gobolka Bakool waxaa lagu dilay 2 askari oo ka tirsan ciidanka Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. dilka labadan askari waxaa geystay dagaalamayaal ka tirsan argagixisada oo wadada u galay kadib markii labada askari ay ka baxeen xero military oo ciidanka Ethiopia ay ku leeyihiin garoonka degmada Wajir ee gobolka Bakool. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta labadaasi askari ay uga baxeen saldhigga ay ciidamada Ethiopia ku leeyihiin duleedka Wajir. waxa ayna warar ka soo baxaya sheegayaan in ay baxsad u ahaayeen dhanka dalka Ethiopia. argagixisada oo war ka soo saaray dilka labadan askari ayaa sheegtay in ay ka furteen 2 qori nuuca shiishka ee shaamashuutarka loo yaqaano iyo qori AK-47 ah oo ay wateen. sidoo kale argagixisada warkooda waxa ay ku sheegeen in askartan ay baxsad u ahaayeen dalkooda Ethiopia kadib markii ay ku adkaatay nolosha go'doonka ah ee ku haystay saldhigga sida lagu yiri qoraalka warka. qodobkaasna wuxuu ugu dambeeyay warkii wadanka. intii aan ka gaarayna warkayaga xiga waxaan kaga tegaynaa guul iyo gobonimo.